Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalay waa idin salaam meel kasta aad joogtiin. Maasha Allah, tabaarakallah. Maanta waxaa meeshan wax noogu diyaar ah hilib ari garab ah, qayb ka mid ah garabka ariga. Insha Allah maanta waa karineynaa hilib macaan badan. Insha Allah soo diyaar garow hadee. Inta waxaa iigu jira xawaaji dhuudhuub iyo xawaaji buurbuur. Inta waxaa ku jiro filfil iyo lemon and pepper, filfil, kabsar iyo toon. Food coloring oranjiga qaadada ugu yar ku cabiranaysaa iyo far iyo suulkan gaduudan oo food coloring ah labadaas la isku dare kalar qurux badan ka soo baxaya. Inta waxaa iigu jira basasha powderka ah iyo cusbo. Insha Allah haddaan bilaabeynaa marinate-ka inaan dhanaanino hilibka. Kabsarta iyo toonta soo marmarinay qaleel hadduu kugu noqdo wax yar biyaha ku darsanaa. Hadda biyaha ku darsanaa wax yar si uu iigu fududaado oo u marmariyo hilibka dhan isku gaarsiiyo. Hilibka wuxuu ku fiican yahay intaadan karinin inaa wax marmarisid hilibka ari oo si fiican isku dhexgelisid. Haddaa rabtid inaadan maraq ka baxsanin oo asaga la isku kariso saan ku macaan aad u macaan yahay saan. Dhanaanka dhan lafta inuu ka galaa la rabaa maasha Allah. Wax yar kale biyaha haddana ku soo darsanaya biyihii haddaa ku daro wax yar wax uu yaraada camal ay noqdeen qalqaleel oo noqdeen. Kis yaraan kale ku soo darsanaya 2 koob biyo meeshaas iigu jiro aan rabo inaa qiyaasti hadhow aan ku daro koobkaasi tani ah haysta 2 koob oo qalma. 2 koob markaa ku shubto wuu buuxsamaa meeshana cabirkana meesha ku yaala maasha Allah. Hilibka dhan saana isku marmarinaysaa dhacaankiisa iyo caraftiisa waxa dhan dhanaanka asaas u gaarsiinaysa. Insha Allah haddana waxaan suubin doonaa kariskiisaan bilaabeynaa. Digsigan ballaaran aan soo qaatay oo qarka gaaban oo birtaawada camal ah. Insha Allah asagaan ku karinayaa. Saliid olive oil aan ku karinayaa oilkaas wax yar si ay waxaan ku dari doono ay isugu dhagaan oo maasha Allah u soo baxaan. Basal kuma daraayi. Pomegranate sauce waa rumaanka sooskiisa dukaamaha carabaha iyo meelahaas badanaa laga helaa. Hilibka wuxuu ka dhigaa wax gaduudan oo qurux badan maasha Allah u malaysid in la dubo camal maasha Allah adigoo digsiga ku karsada wuxuu ku noqonaa wax la dubo camal. Saliid olive oilka markasta wuxuu ku fiican tahay iyadoo karkarin inaa wax kasta korka uga shubtid waxa ku shubtay asaga la soo karaan. Waa kan hadda way soo shagacay dhahday waxaan rabaa hadda hilibka ku ridaya dhinac saas si fiican oo isla siman aan ugu ridaa hadduu alle idmo oo mid kale dheereen oo si kale ahaan si fiican isugu dhawaado oo isku kariyo hilibka markuu kala taagan yahay. Waxaa waaye si kala duwan oo ilaa amarkiisa ani fikrad ahaanteeda oo u kala karaa laakiin hilibka markuu isku dhagan yahay si fiican loo simo si qurux badan oo wuxuu ku soo baxaya kalarka isku si uu noqonayo. Maasha Allah hilibka dhan saas oo saarnaa weligaa ani soy sauce ma jecli. Pomegranate-kan iyo biyo kale oo loogu talagalay sauce kale oo loogu talagalay hilbaha in lagu daro aan jeclay inaan ku darsado ilaa amarkiisa. Soy sauce dadka dambeeyay ma ihin laakiin asagana ma xumo wuu fiican yahay. Haddii waxaa haysatid le wax laga dhigaa hadda inta haysatid wax ka suubsa haddaadan pomegranate haysanin waxaa ka suubsanaysaa soy sauce-ka ku suubsanaysaa soy sauce-ka asagana wuu gaduudinaa insha Allah. Qasab ma aha inaa haysatid laakiin haddii aa awoodid inaa helaysid saas suubi. Hadda hilibka dhan saas oo soo taxna wax yar ka bacdi wax yaraan dabooleynaa si hoos uga soo gaduuto. Kadibna waxaan suubinaynaa waan fiirinaynaa hoos u ka noqdo wax yar ka bacdi oo soo laabaneynaa. Haddana korka waxaan uga shubayaa sauce-ka hadda idin sheegayay oo ah steak loogu talagalay. Sauce-kaas aad u macaan yahay insha Allah. Haddana waxaan ku
daraya qal yar. Qalka waxaa waaye hilibka aad u macaaya, cuntada lagu darana badanaa ma halaawdo, dhaqso ma isbedeleyso, sideedii ahaanaysa. Ani suugada hilibka waxa dhan qal inaan ku darsadaan jeclahay saysan dhaqso iiga halaabin. Hilibka waxaa waaye waa muhiim inuu si fiican u karo, wax kasta si fiican markay u karaan way hagaagayaan. Maasha Allah, waa kan hilibkii markaan sooskii wax ku darna ma aanan daboolin. Hadda waa ka maasha Allah, hilibka days u gaduudtay inaba caadi ma soo karin oo gaduudtay waa rabtaa inaa cuntidaaba ku qabanayso. Maasha Allah. Muhiimad waxaa waaye koob inuu saas kugu gaduuto. Markuu saas kugu gaduuto biyaha korka uga daray waa isdhexgelinaysaa oo isku walaaqay hilibkii. Then waa daboolanaysaa every 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes dabkaaga siduu yahay ku xiran tahay. Waa fiirinaysaa saa ku ogaata xaaladiisa meeshuu maraayo. Laba koobkii oo hadday xag iigu jiraan baaquligii dhandhanaankii iyo dhacaanka lahaa ku darsada kusoo dhaqday marada iska beel dareeyo dhacaankii meesha ka buuxaan dhaqdhaqo. Labadii koob kalena waa kusoo daray hadda saan 4 koob ay ku yihiin oo biyo ah. Hilibkaaga aday kugu xiranta. Ana hadda hilibkayga kastoo yar uu badan yahay, moor uu badan yahay hilibkaaga, moor oo biyo ah u baahan tahay. Maxaa yeelay inuu si fiican ka lafta in kor loo qaado lama rabo oo iligi jaf lagu siiyo gacanta le in lagu soo gooyo la rabo insha Allah. Marka waan dabooleynaa. Hadda waa 10 ilaa 20 daqiiqo, 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo gudaheeda kusoo laabtay. Biyihii qaar badanaa hoos uga degay. Marka waxaas korka kasoo korkoro ma jecli. Waa gedgedinaa si isku dhex gasho. Waxaas waxaa waaye toontii, kabsartii iyo hilibka xunbadiisa. Marka waa inaa kulli wada gedgedisaa haddana. Markaa gedgedisa kadib haddana waxaa waaye waa dabooleysaa. Hilibka waxaa waa muhiim dhacaanka iyo sida isla eg inuu dhacaanka u galo. Sababta loo gedgedinayo waxaa waaye waxaasna inay biyaha galaan caraftii kor ka soo martay dhinaca hoos jirana inuu kor soo maro siduu dhinaca kale kor jiray oo dhacaankii iyo wixii uu hoos u helo. Maasha Allah, hilibka si u quruxsan yahay inaba caadi maaha. Maasha Allah, inta aan haysanin Ilaaha siiyo, inta haysatana Ilaahay ha u barakeeyo, caafimaad ha ugu daro. 20 daqiiqo kadib haddana waa ka kaamirada qiiqa oo waxaa iga daboolay digsigii aan fiiday oo u dhawaa. Maasha Allah, waa hilibka saas maraq si isku beddelay hilibka u soo karkarahay lafihii iyo hilibkii kala soo baxbaxayaan. Marka waxaa la rabaa maasha Allah. Haddana waan dabooleynaa. Hilibka waa saan u soo baxay. Mar labaad haddana waan dabooleynaa. Inta maasha Allah, hilibka saan uu ku soo baxay. Markaa daboolna kadib kaamiradii baa iga dantay inaan daaran u malay ma aanan daarin. Saasuu ku soo baxay oo quruxsan oo maasha Allah biyaha yarka ugu dambeeyay inta ku jiro xumbeynaysa markay ka dhamaaday saliid banaanku soo tufto. Hilibkaaga ka dansanaysa waa kaaseyto korka waxa ugu daadsanaysa. Hadda waxaa la rabaa inaa qurxiso kaala arag ka dhigto oo indhaha laga cuno.